dood weyn ayaa ka taagan baraha bulshada taasoo u dhaxaysa Soomaalida iyo Kenyaanka. Dadkii ugu horeeyay ee degay dhulka hadda loo yaqaan Kenya ma waxa ay ahaayeen Soomaali mise Kenyaan? Waa su'aasha muranka badan dhalisay. Haddaba inta aynaan ka waramin dhulkan iyo cidda ku soo horeysay, waxa isweydiin mudan sidee ayay ku bilaabatay doodan. Xildhibaan Faarax Macalin oo ka tirsan baarlamaanka Kenya isla markaana ka soo jeeda qowmiyadda Soomaalida ayaa furay iridkan wada hadalka ku saabsan ciddii ugu horeysay ee cagta soo saartay carada Kenya taariikhda. Xildhibaanka isaga oo la hadlayay saxaafadda isla markaana ka hadlayay faquuqa lagu hayo dadka Soomaalida ah ee ku nool gudaha dalka Kenya, waxa uu carabka ku dhiftay hadal dood badan dhaliyay. Waxa uu yiri kuma asaasay Nairobi, yaa ka dambeeyay Nairobi inay noqoto xarunta ganacsiga xilli uu adkaa isku socodka oo uusan gaadiidba jirin. Ku laabta taariikhda ee barta. Isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri Xildhibaan Faarax Macalin, waxa aan joognay halkan, waxa uu kala jeedaa Kenya. Waxaan halkan joognay xilli Kenyaan badan oo hadda dalka ka mid ah aysan joogin. Waqtigaasi kadib ayay u soo barakaceen Kenya ayuu yiri. Arintaas oo uu ku hadlay Xildhibaan Faarax Macalin ayaa aad uga careysiisay dadweynaha Kenya ee ku nool wadanka. Dood weyn ayay abuurtay tan iyo markii uu hadalkan jeediyay maalin ka hor, taasi oo tilmaamaysa in ay Soomaalidu ku soo horeysay Kenya ka hor Kenyaanka. Siyaabo kala duwan ayay dadku uga falceliyeen doodaasi, inkastoo ay jiraan sheegashooyin dhowr ah oo aan sal lahayn. Haddaba waxa xaqiiqo u baahan dhulka Kenya dadkii ku soo horeeyay ee deegaan ku noqday markii ugu horeysay. Waxa laga hadlayaa qarniyo iyo kumanaan sano ka hor. Guud ahaan dhulka waa marka laga hadlayo dunida. Markii sii hore waxa uu ahaa mid bannaan oo maran ka hor inta aysan qabiiladu iyo ummaduhu kobcin. Dunidan aad arkayso dalalka waaweyn ee jira waxay asalkoodu ahaayeen dhul bannaan oo dadyow reer guuraa ah u yimid. Sidaas darteed waxa doodani ay salka ku haysaa qoladii ku soo horeysay dhulka Kenya, haddii ay Soomaalida yihiin ama haddii ay yihiin dadka Kenyaanka ah. Marka aad baarto taariikhda iyo dhigaalada dhaxalka ah ee dadkii hore ay reebeen, waxay u badan tahay in aad dhinac raaci doontid doodan laba geesoodka ah. Bogagga taariikhda markii dib loo faydo waxay qorayaan in dhulkan ciddii ku soo horeysay ay ahayd dadka Kushitika loo yaqaan oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Sidaas darteed waxa meesha ka baxaya in ay Kenyaanku ahaayeen dadkii asalka ahaa ee dhulkan Kenya degay. Sida ay daawacday Jaamacadda Pennsylvania ee dalka Mareykanka, gaar ahaan qaybta daraasaadka Afrika, dadkii ugu horeeyay ee degay dhulkan maanta loo yaqaan Kenya waxay ahaayeen dadka Kushitika ah oo u badnaa xoolo dhaqato. Bulshooyinka Bantuga iyana waxay ka yimaadeen galbeedka iyo bartamaha Afrika, waxayna u badnaayeen dad beeraley ah. Tani waxay cadeynaysaa in uu xaqiiq ahaa hadalkii Xildhibaan Faarax Macalin ee ahaa in uu baaray in Soomaalidu ay ahayd dadkii ugu horeeyay ee degay dhulka Kenya. Waxa uu sidoo kale qiray in Soomaalidu ay ahayd dadkii bilaabay ganacsiga iyo ilbaxnimada ee magaalada caasimadda ah ee Nairobi ee dalka Kenya, taasoo hadda ah mid ka mid ah caasimadaha ugu quruxda badan isla markaana ugu horeysa xagga ganacsiga guud ahaan Afrika. Haddaba bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii sheer gare.